kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo ku saabsan kulan ka dhacay maalinimadii Sabtidii xarunta Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Colin. Kulankaas oo ku saabsanaa doorashada golaha baarlamaanka ee waddankan Denmark oo dhici doonta 18 bishan June ee sanadkan 2015. Haddaba kulankaas ayaa lagu soo martay qaaday laba siyaasi oo Danish ah oo kamid ah siyaasiyiinta u sharaxan golaha baarlamaanka ee waddanka Denmark in ay kamid noqdaan. waxaanay kala ahaayeen Christian Qaabeg Madsen oo ka socday xisbiga Social Democratic iyo Malene Bosch Hansen oo hadda kamid ah golaha baarlamaanka ee Denmark isla markaasina haddana u sharaxan mar labaad in ay kamid noqoto golahaasi. barnaamijka gabahanba haddaba waxaan idinku soo koobi doonaa su'aalihii ay dadweynihii Soomaalida ka soo qayb galay kulankaasi ay ku weydiiyeen siyaasiyiintaas waxaanu u dhacay sidan. waxaan weydiinayaa dowladii ka horeysay Fenestaqa iyo Danska Folkeparti waa cadeysteen iska riixida ajnabiga. VK-regeringen har bekræftet at de skubber udlændinge. oo yani inay yiraahdeen baasaboorka lagu adkeeyay dadka su'aalo iyo imtixaano loo diray. Eksempel at de skal have dansk indfødsret, der bliver skrabet rigtig meget. Mange spørgsmål, mange simpelthen urimelige krav. waxa kale ay content hjælpiga oo dadka start content hjælp ay u sameeyeen. Ja, start hjælp bliver også gennemført. waxa soo dhan oo ajnabi lagu riixayo Danska Folkeparti iyo Fenestaqa waagay dawladda ahaayeen waa cadeysteen. Social Democrat iyo Radical Fenestaqa maxay u cadeysan waayeen 4 sano hadda dawladda ay hayaan dhalashada Danishka dadka waaweyn oo qaxootinimada ku yimid haba hal imtixaamo carruur meeshan ku dhalatay 20 jir ah oo 22 sano koonin ku gaaray oo suuskan ku dhashay oo faqanas baad wasto oo liiri imtixaan waa inaad soo martaan oo halkan jaamacada dhiganahay qaarkood oo baasaboorkii weli sidii waalidkooda oo kala loo xayiray idinka taas oo kale maxaa wax cad uga soo saar weysan ugu yaraan dadka meeshan ku dhashay hadduu iskuul dhameeyo oo leen fiican waxbarasho ku socdo automatic Danish u helaya maxaa u dhigi weysan. Spørgsmålet er, nu tager jeg det hele spørgsmålet. VK-regeringen, da de havde magten, det har jo sagt klart og tydeligt. Udlænding skal få dansk statsborgerskab. Der vil jo sidde rigtig mange krav. Uanset om man er født i Danmark, ikke født i Danmark. Der var spørgsmål om sprog, der var spørgsmål om, hvad der var kaldt førsprog, altså indfødssprog, alle mulige ting. Hvordan kan det være, at Socialdemokrater og Radikale Venstre, hvorfor har I sådan en klar besked om vælgerne og siger, vi vil gerne have indføre, altså ændre, eller lempelig indfødsretsområde. Specielt, det kan ikke være rigtigt, at folk, der er født i Kolding sygehus, der har været 22 år i Danmark, går i skole, tager en uddannelse, at de ikke har dansk pas. Hvordan kan det være? Hvorfor jeres politik er ikke klar, ligesom VK-regeringen? Men det har vi ændret. Hvis du er født i Danmark, og du er 16 år, og når du er færdig med folkeskolen, har mindst 02, altså karakteren 2 i dansk og matematik, så får du dit danske statsborgerskab, dansk indfødsret. Waan bedelay til sharcigaasi. Sharciga wuxuu dhigayaa marka haddii Danmark ku dhalatay dugsiga hoose aad dhamaysay folkeskole maadooyinka Danishka iyo xisaabtana uu buundada ugu yar ee lagu baaso macnaha eber laba ad keentay baasaboorka Danishka gacanta laga saaray. Så får man det automatisk. Automatisk u helaya. Hvis man ikke har 2, hvis man har under, hvis man har 0, du laba usan haysan marka buundada laba usan haysan eber iyo wixii ka hoosay. Så har man 2 år til at søge det i. Laba sano oo marka haysta oo ku raadsado inuu Danish ku noqdo. Laba sano qaadanaysa marka inuu helo. Så får man det når man er 18, med mindre man har begået kriminalitet. Marka waxa la siinayaa markuu 18 gaar laba sano dib loo dhigayo. Marka hore 16 buu qaadan lahaa, laba sano dib loo dhigay. 18 qodob marka laga reebo haddii uusan dambiye u gaado. Det har vi indført, det fastholder vi. Waa bedelna sharcigaasi waan ku adkaysanayna. Ali Ismail. sii wado. su-aasha 4 caruur aniga gurigii joogto oo 12 jir ugu weyn waa buuxsadeen baasaboorka kulin suusay ku wada dhashay. waxaa la yiri su'aalaadkii 40kii su'aalood ee dadka waaweyn maraysaana la yiri booliiska saas ku soo yiri haddayba taagan tahay taas arka sharciga fiye baan laakiin maale faan waxa ku tiraa yimsidka meel group aan geliseen qaylkiina ah in qofku 0 to 16 jir ku qaadan karo hay babiis mid uu dibal
Yeah, der er 2 spørgsmål. Vi starter lige der. Med var sudre. Han siger, jeg har 4 børn, og det er alle sammen voksne. 21. Føler det så var 21. Jeg har søgt dansk statsborgerskab. Der blev sagt, at vi skal jo også gå igennem, altså ligesom de andre krav, ligesom voksne, indfødsprøve, alt muligt ting. Hvorfor? Nu må du snakke om overgangsordning. Ja, det er jo fordi, at vi kan ikke lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Vi har ændret loven, som Malene redegjorde for før, fra vi tiltrådte i 2011. I 2012. Så de børn, som er dine børn, som er vokset op under VKO styret, de vil jo være under de regler, som var på derværende tidspunkt. Men vi har jo så gjort det, at de ikke skal igennem det pointsystem, som vi tidligere havde på området, hvor der var nogle krav til indkomst og til uddannelse, hvor man sorterede folk fra med det udgangspunkt. Men det de i stedet for skal gennemføre, det er indfødsretsprøven, som vi også tilbyder kurser i, sådan så vi ruster folk til at bestå den prøve. Så den vej til dansk statsborgerskab for dine børn, fordi vi jo ikke kan lave regler med tilbagevirkende kraft, det er indfødsretsprøven. Nej, du kan lige sige, hvad Christian siger. Waxay tiri sharciga annaga aynu dejinay wuxuu dhaqan galay markaynu dawladda la wareegnay 2012 bishii ay xukunka la wareegnay jiray marka sharcigaasi annagu aynu bedelnay wuxuu ka bilaabanayaa wixii ka dambeeyay 2012 marka carruurtooda hadday dhasheen mar hore oo ay macnaha da'dooda ay gaartay 18 sano iyo ka weyn ama 16 sano iyo ka weyn sharciga dawladda hore ayaa qabanaya marka wixii ka dambeeyay un baa laga hadlaya shuruuc asaasi isu nasaqaan oo sharci walba sharci ka horeeyay unbuu ma aragtay marka sharci la bedelo xilli buu ka bilaabanayo xilliga marka wixii ka horeeyay waxba laga qaban karo sharciga hore baa qabanaya wixii ka dambeeyay un baa laga hadlaya so it's possible ma aha maxay ahayd YMC maxaa ay waxa jirta dad badan ma hadda dadkeena waan jeclaan hadalay laakiin wax qorad ma kuma wanaagsan gabadhu waxay nagu kordhisay tiri markii aanu dawladda qabanay waxaan ka bilownay in ciidiyaalka 16 shirka ah aan sharci u sameynay haddii keenaan 0 iyo wixii ka badan ee baasaboorka qaadan karaan mindaqa haddii aan karabnaan waxa jirta oo ilaa hadda ku jirta YMCada Danish-ka in ku jirto ku imtixaanadii hore laba aan shuruudaha adinka bedesheena ah waqtiga ku gala aan arag marka bileysku loo tagana sida walaalkeen noo sheegay loo oranayo 16 jirka imtixaanka gala wax cadeen waxaad ku haysaa BNC der den nye lov som I har ændret for I fik magten den står ingen steder når man kommer ind på internet så kommer ny dansk altså ny Danmark så ser man kun de gamle regler. Okay. Den nye lov, som I har ændret, altså det er både forstå enten Socialdemokratiets hjemmeside eller Radikales hjemmeside, eller et eller andet sted, hvor man kan læse og sige, her er loven blevet ændret, her kan vi læse. Der står ingen steder. Folk når de kommer ind, så siger de bare de gamle regler. Waxa kala cadeen waxa ku tahay dadka imka imtixaanka galay oo kale waxa lagu sameeyaa imtixaankii qoladii ka horeysa ay gashay bay YMCka ku dawaqaan haddana markay imtixaanada meelaha lagu qaaday passport oo kale imtixaano cusub baa la soo dhigay wax cadayna oo YMC ma laga heli karo wixii lagu dhaqaaqo altså også dem der skal til indfødsprøve nu de stadig bliver betragtet som om altså de gamle regler de nye regler de står ingen steder altså ja du forstår hvad jeg mener ja. For det første måske er grunden til at det ikke står så tydeligt at man ikke skal søge altså de her børn skal ikke søge hvis de er født i Danmark af udenlandske forældre bliver 16 år og har 02 så skal de ikke søge, så kommer det automatisk. waxay tiri sababaha loogu qori waayo malaha waxay tahay tiri waxyaabaha automatic soo dhac badana meel lagu maqlo marka hadii cunuga oo 16 gaaro maadooyinka la sheegay oo eber dheero keeno marka ma loo baahan inuu codsado oo wixii automatic waa Danish cunuga men der kan godt være masser som fordi at vi ikke kan gøre det med tilbagevirkende kraft og så har der været nogen som er faldet mellem 2 stole i en periode hvor det har været hvor man måske lige er blevet 16, men loven har ikke trådt i kraft endnu, så derfor er der nogen, der har været i sådan en... Der er nogen, der er kommet lidt i klemme i et par år, men det er over nu. Fra nu af er det sådan. waxaa jira dad marka dhexda ku dhacay oo sharcigii horena soo dhaafay kan cusubna aan la qabsanin oo labada sharci dhexdooda xogaa ciriiri ku galay laakiin hadda markii ay doorashadan dhamaato waqtigiina 2012 ku ahaa kii hore aynu sharciga ansixinay marka isbedel badan baa dhici doona wixii caadi normal u noqon doonaan. Jeg sidder i indfødsretsudvalget for Radikale Venstre. Ani waxaan ahay qof fadhiya hadda barnaamijka ayda ku jirta guddiga
macnaha baasaboorka dadka qaadanaya go-aanka ka gaara marka la yidhahdo waraaqaha laga soo dilaa in waxaa loo diray guddi baa ka fadhiisanaya guddigaan ku jiraa bay tiraan. Der skal vi stemme om man må få dispensation til indfødsret. Det kan være, der, hvis man ikke kan gå op til prøven, hvis man ikke kan gå op til danskprøven for eksempel, hvis man er syg, eller hvis man har en uddannelse, så er det jo nogle gange helt skørt. Hvis man nu er uddannet sygeplejerske, så er der jo ikke nogen grund til, at man skal gå op til danskprøven. De dispensationer, dem sidder vi politikere, en fra hver parti, og det er mig fra Radikale Venstre, der sidder og godkender det. Radikale Venstre stemmer ja til alle. guddigaasaan ku jiraa guddigaas waxaa weeye guddiga dadka oo waraaqaha ama arjiga soo qorta ee codsanaya in baasaboorka deenishka ah loo cudur daaro sida tusaale ahaan ayagoo xanuunsan ama ayagoo oo heer jaamacad aqoon leh matalan waddankaaba jaamacad kaga baxay marka uma baahna in la imtixaano oo la rafaadiyo oo la af deenish soo bara iyo wixii waaba nin shahaado sare wata ama nin dhibaato xagga maskaxda ka haysa ama nin deenish baran karin guddigaaba aniga ku jiraa dadkaasi loo cudur daarayo aniga haddaan ahay Radikale Venstre wax walba haaban dhahay tir wax walba oo dad qof kasta loo cudur daarayo waxaan dhahaa waa loo cudur daarayo Dansk Folkeparti stemmer nej til alle. Dansk Folkeparti wax walba nej buu dhahaa. Nej, hvis der er en der ikke er muslim, så kan de godt stemme ja. Laga yaabaa qof haduusan muslim ahayn inuu dhaho okay ninkaan waa iska sii waxaa muslim. En buddhist eller sådan. Jeg skal sige helt kort. Må jeg lige sige noget helt kort? Vi har ændret sprogprøven fra, at man skulle bestå sprog 3, til at man kun skal bestå sprog 2. Vi har ændret indfødsretsprøven, sådan så man ikke får spørgsmål i, hvem var konge på Færøerne i 1600 et eller andet. Sådan så, at man får spørgsmål i indfødsretsprøven, som passer til det samfund, vi lever i. Og vi har gennemført, at man nu kan få dobbelt statsborgerskab. waxaan sharciyeynay bay tiri 3 qodob oo muhiim oo ah qofka in aan la weydiinin oo imtixaankii bay ka hadlaysa dadka shuruudaha lagu xiray inaan su'aalo la weydiinin macquul aan ahayn tusaale boqorkii xukumi jiray 1000 sano ka hor magaalooyinka dalmarka wasii Faa'iido kale uu ahaa oo kale su'aalahaas waxba aan tarin labo imtixaankii ahaa Danish Pro 3 aynu bedelnay hata in Danish Pro 2 imtixaanka laba ka dhignay waxaan kale oo aynu bedelnay in ayadana qofka bawadan number 3 qofka inuu qaadan karo laba baasaboor ama laba jinsiyadood inuu yeelan karo awl maadaama mamnuuc been adigoo Soomaali ah oo aan Soomaalnimada waxba ka bedelin in haddana Danish aad noqon taana way in sharciyeynay hal Ismaaciil baa ka hadlay anigu su'aal ma qabo laakiin xogaa yani dhiirigelin yar ayaan hayaan yaha expose mulaysan opportunity Christian ayaan shalay kala kulma soo daalan wado hoose darabe Ahmed Christian I forgårs er du med mig træt. Åh, har galt ord. Du har to ting i hånden. Og det har så galt. Altså to promise. Og så galt bliver gelier der skulle jirane. Det tror jeg taget rose og ligger sådan ind i vandet. Det ligger der nu. Marka asku adkaanagu yani waa dawladda siinayna qasar urada yani ina dawladda siin doono. Abigiya saqaqiyan. Marka taas aan ugu hambalyeeyaa. Iska bare sådan Det er jeg utrolig glad for, og du skal vide en ting, at Socialdemokrater bliver aldrig trætte. Det er rigtigt. Du siger, at xisbiga Soomaaliya du weligiis ma daalo. Basta ma daalay anagu. Su'aalaha keena kooda ina isweera u dhiibayna. Ninkan uu baa u gudisay bulaha abada ayaa Ujeedada fogaan gabadha lii afturkanaya English possible. Soo gaadhay. waxay gabadhu nagu tiri waxaan fadhiyaa guddiga go'aanka kama dambaysta gaadha khaladka ugu faraha badan dhakhaatiirta ka dhacda khaladka ugu faraha badan wasaaradda caafimaadka ka dhacda ma waxa idin ka tahay imika nin bay waxa lagu yiri bilayska hadaan u tagno waxay nagu oranayaan soo raadiya imtixaanka gala goorma go'aamada gaadha soo gaadha meelaha loogu talagalay sida caafimaadka kale waxbarashada kale bilayska kale goorma soo gaadha وخلادات كومبان لو دمر كجري انا dadkii loo cudur daaraha cudurka loo diidan yahay may markuu go'aanka ay gaadhno waxa uu golada gudda go'aan gaadhaan may wala loo yarkay gabadhu waxay nagu jiro go'aanka anaga gaadhna go'aanka soo saartan goormuu gaadha halkii loogu talagalay no okay die aan Syrië dus de infrastructuur den beslutning also den
Altså de ting, I vedtager. Hvornår kan I så, altså hvornår kan få borgerne? Altså vi har aldrig set. sanado badan buu Eller tager det overvis, eller hvor lang tid tager det? Al den beslutning, I tager. Altså borgerne kan ikke se det. Vi ved jo ikke, hvad I har sådan besluttet det. Altså der kommer for eksempel en ny lov, indfødsret, og der bliver lempet, der bliver ændret den her lov. Vi får aldrig vide alle de her ting. Er der nogen ting, som vi kan læse, eller kan vi gætte på? Altså, jeg prøver at gå ud og sige det, fordi vi er jo glade for ændringerne, så vi prøver at sige det til aviserne. Men aviserne skriver jo tit ikke om det, når det er noget godt. Altså, når politikere er glade, så gider aviserne ikke at skrive om det. وأنت أنا وحي عن معناها وحي شروع عن فلونا مرة وحي عن أي فلونا وان شجابت يعني لكن طبعا جورناليستيش ما جعل وح قف مركو سياسي أو فرح سنة هاي وح فرح هذا مرة وان وعرنا وح نيجاتيف في هذه marka ma garanay til kulli meesha laga heli lahaa men jeg skal bare sige når det er vedtaget så skal det stå på Ny Danmark det skal det alla markii sharci la ansixiyo homepage-ka ama bogga Ny Danmark inuu lagu dhigo qasab weey. Jamen det er jo samme pointe. Lovændringerne står på Ny Danmark. Jeg fik det lige stukket i hånden her. Så man kan finde det på nydanmark.dk. Men det kan godt være, at man skal grave lidt ned under de gamle historier for at finde ændringer, som ligger år tilbage. Men det fremgår på nydanmark.dk. Waxaan ku diridaa kaliya ka bedel waxay sheegtay ayaan Ny Danmark ku qoran yahay tir laakiin baan qof inuu faago macnaha uu qodo boqol laabtan meel ku dhex jiraan waxaan sii baaro meesha ku dhex jiraan su'aal baa su'aasha iska lahaa سؤال ما هي أنا gelin wadagana horta waa mahadsantihiin isi taagto iyo tuudaha qomay wax badan inaad qabateen muddadii 4 sano aad joogteen quranka ma tahay der er en diskussion i de 4 år jeg har været at jeg har ændret og jeg lavet rigtig mange ting aniga markii doorashada dhacaysay tii hore markay dhacaysay waxaan joogay Nairobi waxaan ka wootayay safaaradda Denmark sidste folketingsvalg jeg var i Kenya Nairobi og jeg har altså stemt på faktisk i ambassaden. Ja, Socialdemokrat. Quranka ma taagna marka dadkan meesha jooga inay qood balog yihiin. Alle dem der sidder her i aften røde blå. Alle Somalier de stemmer på Socialdemokrat. Dad badan oo hadda meesha fadhiyo oo sharciga haysan der er nogen der sidder her sharci ka weyn der er også nogen der sidder her som ikke har stemmeret i Folketinget maalintii waxaan ku soo qorteen muxuu ahaa dad badan inay muxuu ahaa loo ogolaaday magaalada koolin dad badan oo Soomaali baa ku jiray laakiin ma soo gaarin oo hadda maanta ma codeyn karaan haddii dokumentigaas la soo hormarin lahaa maanta cod badan baad heli lahayd. Der også, vi har også læst i internet, at der er mange somalier, der har fået dansk indfødsret, men de har ikke fået beviserne endnu. Havde de haft beviserne endnu, så har jeg fået rigtig mange stemmer. Der er altså under stadig proces, at der kommer sådan, der bliver søgt på internet, at de har fået. Marka waxay hadda ka dambeeyo waa insha Allah waa ku soo noqon doontaan. Markaad ku soo noqotaan wixii ka dambeeyo waxaad badisaan wixii qaladaan oo hadda aad la kulanteen inaad saxdaan. Jeg håber, I kommer ind igen, og I fortsætter i Kenya, og når I har fået magten igen, som jeg håber, så jeg vil gerne, at I retter alle de fejl, I har lavet. Alle de små fejl, som I har lavet, I retter igen. Tillykke. Tak. Og tusind tak for kommentaren. Og jeg vil bare bemærke, at jeg synes, det er fornuftigt at stemme på os. Ikke fordi waxaan dareemayaa tiri inaa waxa sheegay sax yihiin laakiin waa macquul anaga nooc way saanay tiri waa siday tahayba men ikke kun fordi vi bliver glade, men fordi vi har brug for nogle politikere som tror på at vi kan komme fremad sammen og som ikke bruger integrationsspørgsmål til at score billige point. Vi har så meget brug for den dialog vi har imellem kulturer, og derfor er det afgørende at I bakker op om Socialdemokratiet eller Radikale Venstre. Det har vi virkelig brug for. aad iyo aad ugu baahanahay codkiina sababtay tahay waxaan lagu jiro dad siyaasiyiin oo idinkaba idin arkay inay idinku cod badsadaan anaguna waxaan aragnaa dad in wax loo qabta u baahantiin laakiin dad baa waxay arkaan siyaasiyiin in cod idinku helaan xumaantii inay sheegaan cod ku helaan marka taageeradiina aad iyo aad ay noo anfacaysaa waayo waxyaabo fara badan baan qaban lahayn su'aasha waxay Cabdinaasir qof ay qoro xaamino qof ii qortay su'aalaha soo qorayaan waa ku wareeraa dadka noo su'aal yar oo gaaban baan qabaa ya ha it's possible
waxaan ahay dadka cusub ee qoladan sharciga siiyeen baa ku jira. Ja, die nyvliegende kommer i Kolding, som gennem jeres regering har fået opholdstilladelse. Ja, dad badan oo ilamadana way fadhiyaan. Der er også mange andre, der marka hadda waxaan inta iskuulka laakiin tan qaba su'aasha qaba waxay tahay dan soo koobo practice banaada. Professional shaqadii aan practice aan Soomaaliya ka qaban jiray ama Afrika markaan joogay waxa aan hayma hadii xataa la idiro waan aadna laakiin tan ba waxay tahay wixii macnaha waqti ama laha. Practice waa 3 bil baan saxinaa 3 markay dhamaato 3 kala nolo saara 6 markay dhamaato 3 kala soconaysa marka waqtigii ma soo koobaysin hadda dib u timaadin mise tan baan ugu wadaysin. Det han siger det er, jeg er lige kommet her i Kolding, altså nyflytning, har lige fået opholdstilladelse i jeres regering. Mit problem det er, at jeg blev sendt en praktikplads, altså ikke en praktikplads, men en praktik i en virksomhed, som man gør alle flytninger. Problemet er, at den her praktikperiode, den slutter aldrig. 3 dage om ugen, og så færdig en måned, 2 måneder, så bliver det fornyet igen. Jeg har en anden uddannelse, altså jeg har en uddannelse fra Somalia, der blev aldrig spurgt, så der er ikke nogen, der spurgte mig, hvad jeg er uddannet til. Jeg blev bare sendt en praktik. Altså det er nu der ikke noget, altså er der ikke nogen begrænsning i den her praktik. Hvis I får magt til nu, kommer der nogen forandring, eller ændring. Lige inden der blev folketingsvalg, der lagde regeringen, Socialdemokraterne og Radikale, en ny lov frem, en ny integrationslov, som gjorde op med lige præcis det der med praktik, og sagde, man skal ud i virksomhederne, ikke bare i praktik, man skal ud og have jobs. Vi nåede ikke at få den vedtaget, for så blev der, lige nu er der jo ikke nogen i Folketinget, men loven ligger der, og når vi vender tilbage, og forhåbentlig stadigvæk er i regering, så skal den lov vedtages. Den ligger bare og venter på at blive vedtaget. waxaa jirta sharci inta aan doorashada la gelin annaga haddaynu dawladdan aynu soo jeedinay baarlamaanka aynu keenay sharcigaas oo dhahay praktigu ujeedadiisu aysan noqonin in dadka uu loo diro markuu dhamaadana sidaa sheegaysa midka loo diro inuu hadafkiisu ahaado qofka inuu shaqo la siiyo haddaan shaqo la siinaynin in la joojiyo sharciga markaynu soo dhignay meesha doorasha lagu dhawaaqay wuu yaalaa sharcigii haddaynu helno waa fulinaynaa. Og det der er positivt ved det tiltag er, at vi skal kombinere praktik med sprogskole, og vi skal sikre, at arbejdsgivere, arbejdspladser ikke misbruger praktikordningen til at få billig arbejdskraft. Og så skal vi sikre, at den praktik I rent faktisk fører til arbejde. Så det er ikke nogen, det er en meget ambitiøs plan, men det er afgørende, at vi får kombineret det praktiske arbejde med sprogskolen, fordi vi tror på, at den bedste måde at lære dansk, det foregår ude på arbejdspladsen. Vi skal ikke gemme nogen væk på en sprogskole i 3 år. Vi skal kombinere sproget med praktisk arbejde. Så skal vi sikre, at praktikordningen ikke bliver misbrugt. Og så skal vi sikre, at de uddannelser, som nytilkommende kommer med, i langt højere grad bliver anerkendt af det danske system. Og det har vi afsat penge til. Så det er noget af det, vi tager fat på, når vi forhåbentlig kommer på Christiansborg efter valget. wuxuu yidhi hadalkeeda uu sii dhamaystiray wuxuu yidhi baraktiga qofka loo dirayo shuruucda aan soo dhigna waxaa kamid ah oo ku dhex jira malina ay sheegtay in qofka marka baraktiga la geynayo heshiiska uu ku jiro in shaqo la siiyo marka hore labo in baraktiga iyo sprogsulka laisku dhex wado si qofka uu shaqadii luqadii ugu baran kaliya sprog oo shirkadan u tago saddex qofkaasi in aan si xun loo isticmaalin in abuse aan lagu samayno shaqaale raqiis uusan u noqonin oo shirkadii uu howl u hayo lacagna lagu siinayo afar qorshaha dheer la wadana waxay tahay in dadka ajnabiga ah ee qaxootiga ah ee shahaadooyinka wata sidoo kale waxa hore u soo bartay in shahaadooyinkooda aqoontooda la ictiraafo si shaqadooda ay soo barteen loo siiyo. aad baan u mahadcelinayaa imaanshaha soo shaqeyn oo yimaadeen ururka. Tak for at I har valgt at komme til Smedelsko ind. waxaan kaloo sheegayaa ma jirto radikaal arrintayd wax walba haabaan raana. Det er ikke rigtigt det du sagde, Marianne, at alting indfødsret, jeg siger ja. sharciga 24 ahaa waa xisbiga keliya muxuu ahaa isla bedelay ka wadi weysaa muxuu ahaa in wax laga bedelo 24 øjne, det er den eneste parti, som regeringen ikke kunne gennemføre denne lovgivning, det er Radikale Venstre. waxaan kaloo u sheegayaa 4 Soomaaliya ayaa xamar ugu celiyay maandhow. Der blev sendt tilbage til Somalia 4 flygtninge, der sidder i asylcenter. Direkte til Somalia, og det er så jeres regering.
kuwii kaabka ku jirana waa yaaceen hadda meel alla meeli jiraan lama yaqaan waa wareegsan dem der er tilbage asylcenter de er simpelthen er faret vild efter der blev sendt tilbage i Somalia. idinkaana ka mas-uula Og det er jeres ansvar. macna samayn mayso inaad ammaano muxuu ahaa khalad badan aa samaysaan. Det giver ingen mening at vi roser bare jer, men jeg er nødt til også at fortælle jer de fejl der sker gennem jeres program muxuaha buluga waxyaalo badan aan ku ammaanaya jira laakiin wax keliya aan ku nacbaa waxa weeyaan dance for den blå blok, der er mange ting jeg roser, men det eneste ting jeg ikke kan lide, det er dansk folk. haddaysan dance for ku jiri lahayn waa u codayn lahayn kulliga hadii bari waa Hvis der var ikke dansk folk i blå blok, så har jeg også stemt på de blå blok. Nu er det meget hårdt. Hvad skal du Christian? Nå, det er færdig. Du fortsætter. dadka Soomaalida halkaan fadhida markay blue hayeen muxuu ahaa dowladda dad shaqada faraha badan waqtigaas Mange somalier, der sidder her i aften, dengang det hed, den blå regering havde magten, der er mange af dem, der har fået arbejde. macna sheegi maysa marka inaa codkeena qaata anagana buskana saartaan oo aan noqono dad muxuu ahaa intan waxaasaa idiin qabanaynaa waxaasaa idin siinaynaa laakiin aan noqono dad mar walba la sheego oo dadka bulshada ugu liita Soomaalida bulshada ugu liita oo hadhow tusaale xun laga bixiyo. Det giver ikke mening, at når I får magten igen, at I lægger tæppe oven os, og så, det vil sige, at der er ikke noget at snakke om Somalia, og så når kommer igen folketingsvalg, så begynder I igen at jagte os. Altså, så er det jo إيه رأي هذا القدم يا شيخ هذا القدم محور إيش هذا القدم هذا القدم إن أمانتان إن أما مصطفى ساتين ما فهم Jeg siger det er, at det nytter ikke noget, at der er nogle journalister, der misbruger vores befolkning, der bliver fremvist i medier, som medier er dårligste bygning i Danmark, og samtidig, at vi får ikke noget arbejde. Der bliver ikke skabt noget i det der hensigt. arrinta isha waxa weeyaan annaga gabdha iyo wiilal fara badan ayaan leenahay oo aqoon badan jaamacada dhigta dugsiga sare dhigta technician ku jira waxaan idin ka codsaynaa haddaad u soo noqotaan muxuu ahaa maanta u soo noqotaan waxaa ku tiraahdaa bilasxaan waxaa ku tiraahdaa kuwa baraatiig badan jaamacado fiican waxyaalaha faraha badan kuwaas xoogga saara. Hvis I får magten, så håber jeg, at I hjælper de mange af de unge, der er færdiguddannede, eller dem, der er i uddannelsen, så kan de få arbejde eller uddannelse. Den hjælp, så håber jeg, at I giver den her hjælp. Nu er det ordentligt. Ja, helt kort. Du siger, der kun er Dansk Folkeparti, der som afholder dig fra at stemme på Blå Blok. Waxaa tiri Dansk Folkeparti baa kaa hortaagan inaad u codayso buluuga. Jeg kan et argument mere. Mid kale ku hayo okay. Lars Løkke. og det er ikke kun for sjov, fordi det handler også om, at under Lars Løkke, der tabte vi 100.000 arbejdspladser i Danmark. Den nuværende regering har skabt mere end 40.000 arbejdspladser. Og det bedste, vi kan gøre for vores unge mennesker, og det er fuldstændig underordnet, om de er af somalisk oprindelse, om de er af fynsk oprindelse eller fra Vestjylland, det er at skabe arbejdspladser. Nogle af dem er gået til østarbejdere, men rigtig mange af de arbejdspladser, vi har skabt, er gået til helt almindelige dansk somalier og helt almindelige danskere. Lars Løkke xilligu wuxuu xukunka hayay 100 kun oo shaqo ah ayaa Denmark luntay. Annaga xilligan qabanay 40 kun baa la abuuray. Marka cid alaal cid doonta anagu waxbaynu qabanay shaqaynu abuurnay. Shaqadaasina cid kasta ayaa qaatay. Adaa marka wuxuu ku dhaxlay su'aal oo yiri dadka bariga qaatay bariga ka yimid. Qof ku doona ha aado weey ama Soomaaliya ama 40 kun oo shaqo abuurnay anaga. Nu bliver jeg så ivrig, at jeg glemte tolken. Jeg mener det. Vil du tage asyldingen? Ja. Man kan jo selv om man vil stemme på rød blok eller blå blok. Men hvis man stemmer på blå blok, så går alle partier i blå blok ind for starthjælp. waxaan ku sheegay tiri adiga ama guduud door ama buluug door codkaadaas kale meesha doonto dooro laakiin ogow haddii buluug helaan lacagtii ceerta ahaa oo eberka ay bilaabanaysa wayna sheegteen macna. Og jeg tror ikke på, at man hurtigere kommer i job, fordi man lever
på så lav en ydelse. mana aaminsan mana rumaysan qofka inuu si degdeg ah shaqo ku heli karo isagoo lacag yar oo yar qaata lacagta ceebta aragteen oo yar in ka yar qaata lacagta saar yar leeyahay. Det gør man ved at lære dansk. Og hvor lærer man bedst dansk? Det gør man i en kombination af sprogskole og virksomhed. shaqo qofku wuxuu ku heli karaa in uu luqadda Danish barto soo ku baran karaa luqadda Danish shaqana ku heli karaa in la isku xiro markaa shaqadii iyo shirkadii. Og jo flere der kommer ud og får et arbejde, så næste gang, så ringer arbejdsgiveren ikke til Østeuropa for at få en ny til at gøre rent på værelserne på hotellet eksempelvis. Så ringer han til jobcentret og siger, jeg vil gerne have en mere af dem I sendte sidst. marka ay dad badan shaqo helaan oo shaqo la abuuro oo dadkii faqriga laga bixiyo waxa markaa bilaabanaya in ninka shaqo bixiyaha ah oo telefoon u jiro job center-ka uu qof kale ma haysa intuu wacan lahaa dadka Yurubta bari ka yimid haddii dadku ay shaqeyneen macna dadka Yurubta bari baa la wacanaya. Det er ikke politikerne der afgør hvorvidt man kan få asyl eller ej. siyaasiyiintu go'aanka ma laha ah qofka in sharci la siiyo qaxootinimo ah inaan la siin siyaasiyiintu wax shaqo ay ku leeyihiin. Vi afgør hvorvidt man kan få dansk altså indfødsret. Og vi afgør kun dem der skal have en dispensation. Anagu waxaan go'aaminaa oo kaliya dadka dhalashada Danish raadsanaya iyo dadka loo cudur daaraya inay Danish noqdaan dadka xanuunsan iyo waxna soo kale. Og der har jeg stemt ja til alle. Taasna anigu haaban ee gedigooda. Så bare lige helt kort. Det var jo et langt spørgsmål, så du får et langt svar. Su'aal dheer baad keentay jawaab dheer baan ku siinayaa. Den første rundvisning, jeg laver på Christiansborg, efter jeg er blevet valgt, hvis I vil hjælpe mig med det, det bliver med Somaliske Forening her i Kolding. Haddaad i doorataan buu yidhi cidda ugu horreysa ee aan wadi doono oo aan Christiansborg macnaa baarlamaanka Danishka aan ku soo wareejin doono waxay noqon doontaa ururka Soomaalidu. I har mine kontaktoplysninger på den folder, der er delt rundt. waraaqaha siina waxaa ku qoran xiriir macnaa meel aan meesha isla xiriir doontaan. Og døren og telefonen og Facebook er altid åbne. kullina albaabada oo dhan wada furan yihiin Facebooka, Twitterka, homepage kulla furan yihiin. su'aal kale waxaa iskale ninka la yidhaahdo Shariif su'aalaha waa qaybinaynaa waxaan rabnaa waxyaabo fara badan oo kala duwan in la weydiiyo. hal su'aal la saaraa marka Shariif in yar baa dhiiranaya dadka halkaan fadhiya 3 meelood 2 meelood baasbo dhalasho ma laha waxaana sameeyay qoladii xisbiyada ka horreeyay oo rabay codka ajnabiga ilaa ajnabiga noocaadina ajnabiga inuu codkooda u lumo adinku maxaa beeranaysiin oo arrinta ka fulisay. De har spurgt er mange af dem der sidder her de har ikke dansk indfødsret. Og det er fordi de har været lang tid i Danmark, men det er den tidligere regering, Viggo-regeringen, har jo spadet simpelthen på vejen og sagt, de kan ikke få med alle de krav der er. Hvad gør I, når I får magten med dansk indfødsret? Det er jo sådan et spørgsmål. Vi har jo svaret noget på det. Altså, vi er ikke interesseret i at genindføre det pointsystem, som man havde tidligere. Vi synes ikke, at der skal være forskel på, om man er læge eller man er håndværker. Så vi fjernede jo pointsystemet, og det gør det nemmere at få indfødsret. Så har vi jo også, som Malene sagde før, i forhold til de danskprøvetesten, der ligger tidligere, har vi også gjort mere moderne. Man kunne jo se, at når man spurgte Dansk Folkepartis vælgere, så kunne de ikke selv bestå testen til at få dansk indfødsret. طبعا سؤالها قارن هروق جوابنا دايتي لكن أنه هذا الحقوق قبسنه شرعي وبدلني هذا الوسيله بدلني سؤال عنه امتحانات هذا اللي سميه aadku adag حتى dadenish baa lagu tijaabiyay ka bixi waayay macna shuruuc waxa way aad iyo aad u adag bay ahaayeen. Så det vi har gjort, det er at lave en mere tidsvarende prøve, og vi har tilbudt gratis kurser i forhold til at ruste nydanskere til at bestå den danske indfødsretstest. Så vi har gjort det nemmere. waxaynu sameynay hatta imtixaanada laga qaadayo qofka markuu darish noqonayo hay'ada caawiya si uu imtixaanka ugu baaso ayaynu sameynay hatta si marka qofka uu markii darish u noqdo taa waxaan ku badalina su'aasha iskale maxamed mi hayso dadka tiradoodi aad ma ku dhibina aad fadlan marka ma santiin ba maadaama aan soo boqotay aad iyo aad baa ma santiin tuusin dadku yaas bisoo midda labaad waxa weeye waxaan aad iyo aad aan process uga bixinayaa niman xag jir ah oo hadaladii maandhowta maxay jireen ka hadlay xalayto aan TV ka daawanayay bogus oo dhahay maalintii sharciga qoon loo dibaaldhigay afkiisa ka yimid
for helvede grundlov. Taas aad iyo aad baan waxaan looga bixinayaa. Jeg siger undskyld også på vegne af min religion, også min nationalitet. De mennesker, der har sagt, jeg ved ikke om jeg siger det, Aarhus, at for helvede grundlov. At det her på vegne som udlænding, jeg siger også undskyld på vegne af. Tan kale nin walba qolo walba waxay leedahay xag jir marka sida Dansk Parti qolada naziista ay xag jir u leeyihiin annagana wala xag jir u leeyahay. Alle nationer har ekstremister. Vi har også nogle ekstremister, der kan finde på at udtale sig nogle meget ubehagelige ting. Laakiin waxaan anagu waxaynu nahay Soomaali wadankeena waa laga codeeyaa oo sharcigu wuxuu dhigayaa in la codeeyo sharcigana dadkayga muslimka ee kalena aan xag jirka ahayna waan codeynayna codkana blok waxaan siinaynaa Vi er i Somalia, og vi har også stemt i Somalia, og mange af muslimske lande, der også foregår en valg, og man stemmer. Så de få, der er imod ekstremister, valget, den lader bare stå, men vi vælger at stemme, vi stemmer vores stemme, de røde blok. Tusind tak. Spørgsmål. waxaa weydiinaa aniga dadkan oo baasboorada orda aan ku jirin laakiin waxaa weydiinaa dadka dhalinyarada sharciga soo qaatay oo abadiida lagu adkeeyey kan abadiida dhibaatada ay kala kumaan baasboorka ba gadaraya dad waayeelaa ku jiro midda labaadna waxaa weydiinaa dadka assuulin centerka ku jiro kaamka ku jiro isbitaal haddii qof soo booqdaan oo dhaawacmo qofka dhibaatuu kala kuma hadda cunug laba jira oo isbitaallo lala wareegaya arkaan oo dhaqrama oo isbitaal walba lacag hal bashar lahay. Der er to ting. Den ene siger, altså, jeg siger, han har hørt, der er mange, der spørger dansk indfødsret. Den har jeg slet ikke noget. De nye flygtninge, der er kommet her i landet. Mit spørgsmål er, dem, der har asyl, og har fået asyl i Danmark, og søger til ubegrænset opholdstilladelse. De har endnu sværere at få også tidsubegrænset end dansk indfødsret. Der vil nu stillet rigtig mange krav. Hvordan kan det være, at bare fordi man skal have tidsubegrænset, altså permanent opholdstilladelse, og det er så svært, specielt der er nogle ældre mennesker også, som ikke kan få det. Det er den ene spørgsmål. Den anden det er, når man er asylcenter og venter at få asyl. Hvis man bliver syg, jeg har for eksempel, han siger, en dreng, der har en skade. Han har været på sygehus i skadestuen. Der bliver modtaget, fordi han har ikke CPR-nummer. Det er nogle vanskeligheder, når man bliver syg, men når man ikke har en asyl i Danmark. Det er to ting. Jeg bliver nødt til lige at forstå det sidste. Er det mens man bor på asylcenter, altså mens man venter på asyl? Okay. Ja, det to. Når man alle i Danmark, uanset hvem man er, har krav på at komme gratis på sygehuset, hvis man er akut syg. Qof kasta oo Danmark jooga wuxuu doonaa ha ahaado sidoo ku jooga haddii xanuun degdeg u qabto akut wax la degdeg u qabto wuxuu xaq u leeyahay lacag la'aan lagu daaweeyo. Og så kan det godt være, at det er lidt bøvlet, fordi man mangler sit sygesikringsbevis, men det bliver løst. Laakiin waan ogahay dhibaato qofka la kulmaya maadaama uu CPR number lahayn halkan waa way jirtaa dhibaataas macna. Vi har nedbragt ventetiden i asylcentrene fra 1,5 år i gennemsnit til 4 måneder i gennemsnit. Anaga hoos aan u dhignay waiting list-ka ama sugidda la sugayo qofka in jawaab la siiyo kaliya hal sano iyo bar ayadoo ah ilaa 4 bilood in gaarsiiyo. Og derudover så har vi jo også gjort det muligt, at man kan arbejde i det omkringliggende samfund fra asylcentrene. Fordi vi tror sådan set ikke på, at det er en god idé, at man intet laver, når man er i den her venteposition i asylcentrene. Det er afgørende, at man allerede, når man er i asylcentrene, bliver en del af vores land og får en hverdag, som giver mening. For det er jo oplagt, at hvis man sidder 1,5 år i et asylcenter uden at lave noget, så kan det få voldsomme konsekvenser for ens mentale helbred. waxaan kaloo sharciynay tir qofka inuu shaqaysan karo xirada ku jiro oo kale fursadaan siin inuu shaqaysan karo maalmo gaara 2-3 maalmood xirada qof ku jira og waayo waxay nala noqotay waxaan macquul ahay qof hal sano baa xirada ku jira dhibaatooyin ama cudur xagga maskaxda ku dhici kara marka waxaynu awood u siin inuu shaqaysan karo. Su'aal kale عبد العزيز وقت كمان ساعة واحدة Ja, det var lige سؤال شهر ده بتاعك. I forhold til hvornår man går fra at have
midlertidig ophold til at få permanent ophold. Det er det, vi kalder det, tidsubegrænset. Der er det får man som regel mellem, der er gået 5 til 7 år. Hvis man ikke har begået kriminalitet, det er altid det, der er. Men ellers så får man det efter de der 5-7 år, for så har man en tilknytning til Danmark. Hvis man har børn, så bliver det cirka i løbet af 5 år. Hvis man ikke har børn og ikke har tilknytning, så tager det nogle gange noget længere tid. Det er ikke politikerne, der sidder sådan og kigger sagerne igennem, men det er ud fra en vurdering af menneskerettighedskonventionen, hvornår har man en tilknytning. Og det er klart, hvis man har små børn, så har man, som går i skole eller i børnehave, så har man en tilknytning, og derfor får man hurtigere permanent ophold, når man har børn. Og så bare lige en kommentar til det også. Jeg synes jo, det er fornuftigt, at hvis man begår alvorlig kriminalitet, jamen så får man ikke den permanente opholdstilladelse. Men vi er jo også nu i gang med at diskutere, hvad er grænsen? Og det er fordi, at vi tidligere har reguleret det i forhold til bødestørrelse. Men når man så sætter bødestørrelsen for trafikforseelser op, så kan man pludselig komme i en situation, hvor det med at lave trafikforseelser og køre for stærkt på motorvejen, kan betyde, at man ikke får sin permanente opholdstilladelse. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Det skal jo ikke være sådan, at man ikke kan få en permanent opholdstilladelse, alene fordi man har kørt for hurtigt på en motorvej. Sådan skal det ikke være. Og det er vi også klar til at gå ind og kigge på efter valget, så det ikke skal være den slags mindre forseelser, der betyder, at man ikke får opholdstilladelse, eller permanent opholdstilladelse. Og det er ikke en opfordring til at køre for stærkt på motorvejen. Det skal ikke misforstås, ja. Det er rigtigt. su-aashii ahayd qofka haddii uu dhalashan sharciga abadiin la siiyo waxyaabaha keena waxay ahayd haddii qofka uu caruur asagoo macnaa caruur waddanka la yimid ama caruur ku dhalo way sahlanaanaysaa in la siiyo abadiin sababtay taa waxaa jira sharci dhaha qofka inuu Denmark xiriir la lahaado wey inuu bulshada Denmark xiriir leeyahay hadduu caruur leeyahay caruurta iskool bay aadayaan hanaanadii aadayaan marka qofkii bulshada uu xiriir leeyahay waa loo dadejinaya abadiida haddii qofku uusan caruur lahayn keligii yahay muddadii waa lagu dheereen karaa waxaa kaloo dul dhiga iyadana sharciga oo ah dembi qofka hadduu dembi galo iyadana xiriir waqtigii abadiyada la qaadana way dheeraanaysaa dembigana waxaan rabnaa inaan waxyaaba aan ka bedelno dembiga waxaa kamid oo yidhi dembiga waxaa loo xad baa la dhigay waxaa qofka hadduu dembi galo ama hadday noqoto ganaax ama hadday noqoto dembi gacan uu geystay ama guri u dhacay tan ganaaxa oo kale ah uu ku jiraa xadka la dhigay wuu isbedeli karaa buu yidhi tusaale ahaan kuwa macquul ahayn baa jira haddii tusaalehaan highwayga hadda sharciga trafficka hadda waa la bedelay ganaaxii kor baa loo qaaday qofka hadduu highwayga meel loogu talagalo 130 150 ku socdo oo kale ganaaxii wuxuu tegi karaa 10 kun buu tegi karaa marka qofkii dembi maaha wuxuu galay marka yani highwayga oo lagu socdo xawaare ka duwan kii loogu talagalay in qofka la yidhahdo abadidii waa lagu diiday macquul maaha laakiin taa macnaheeda ma aha wey dhiirigelin aniga aan leeyahay highwayga saan waddan ugu socda marka wuxuu yidhi sharciga waa isbedelaynaa waxay kaloo malina tiri ma aha annaga siyaasiyiinta dadka go-aaminaya qofka in sharci abadiin la siiyo in kale waxa weeye waa guddi oo xuquuqul insaanka ah oo qiimeynaya waxyaaba fara badan laakiin siyaasiyiintu ma aha dadka go-aaminaya su-aasha kale cabdicasiis adu ahaa su-aalkaami su-aasha waa waxaa jiro dad badan oo aniga kale oo ajnabiga oo shaqo inay helaan oo diyaar u ah inay shaqaystaan waddanka wax ka qabsadaan haddana markay job centerka tagaan lama siiyo shaqo waxaa la siiya dadka kale oo ka duwan job centerka markaa tagaan umana raadiyaan shaqo markaad codsatida job centerka tagtaa shaqaa u baahanahay shaqaan diyaar u ah markaad tiraado waxay kuleeyihin aad activate ama taqbaraatiig aad bay kuleeyihin su-aasha labaad waxa waaye barnamtiga ama mataqaana degenaanshaha rasmiga dad anigoo kale waxaa jiro oo 5 sano ka badan joogo dambi weligood gelin oo daaniska tuu soo dhameeyey oo iskuulka soo dhameeyey iskuulka soo dhameeyey oo haddana fiisiig aad waqti badan kusoo jiro haddana maal qaatay xataa shaqeeyey sanado ku dhawa shaqeeyey xataa sanad ku dhawaad shaqeeyey oo aan shaqeyn weli helin degenaansho rasmiga helin maxaa ka caawin kartaa to ting hans spørgsmål. Den ene det er, når man går i jobcenter og søger et arbejde, der er andre, der vil give det her job, der er. Ikke os, og han mener Somalia. Og jeg ved ikke, altså han ved ikke hvorfor. Fordi hver gang vi kommer i jobcenter, der bliver prioriteret andre, men altså andre nationaliteter andre. Og det forstår han ikke, fordi jeg er ung mand, indtil jeg er klar til at arbejde. Der er ingen arbejde. Den anden ting, der er, det er igen samme spørgsmål med permanent opholdstilladelse. Jeg har været med en 5 år i Danmark. Jeg har arbejdet 1 år. Jeg har dansk 2. Jeg går også på VUC og laver andre ting. Jeg kan ikke engang få opholdstilladelse. Altså det er permanent igen, og det er samme problem.
Og ingen kriminal. Og han har aldrig været kriminal. Hvis jeg kort skal kommentere på det med jobcenter, så det går jo simpelthen ikke, hvis jobcenter diskriminerer. Og hvis du oplever det, så synes jeg, du skal sige det i den helt konkrete sag, enten til Marlene, eller til jer selv, eller til et byrådsmedlem, så vi kan få den slags efterprøvet og få spurgt, hvad der foregår. Fordi den slags diskrimination er simpelthen ikke okay. Det skal vi være efter med det samme. wuxuu yidhi wax la yeeli kara ma aha haddii job centerka uu bilaabo in dadku cunsuriyaba haddaa job centerka aad tagtay oo shaqo adigoo macnaha shaqo lagu raadin karo shaqo lagu raadin waayo oodna dareentay in dad kale la siiyey shaqadii ama dadka loo raadin adiga waxba lagu qabanaynin taa ama aniga ila soo xiray ama liina ama dadka biiqoodka la xiray arrinta arrin la yeeli kara ma aho yidhi taa meeshay maraysaa su-aasha labaad Politikere laver lovene og de overordnede rammer. siyaasiyiintu waxay sameeyeen sharciyada iyo waxa ka hooseeya oo ayagana sharciyada la raaca ah. Og så er alle mennesker, der skal have permanent ophold eller indfødsret eller andre ting, det er jo individuelle mennesker med hver deres historie. Og dem sidder der nogen og skal afgøre, hvorvidt de kan få indfødsret eller permanent ophold. Vi politikere har lavet rammerne. Og jeg ved ikke, hvorfor at du ikke har fået efter 5 år, fordi det er et eller andet i din sag, som nogen vurderer. Men det er ikke os politikere, der gør det. Og det er godt. For tænk nu, hvis det var politikerne, der skulle afgøre sagerne. Og det ikke var mig og Christian, men det var Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahl og Lars Løkke, der skulle sidde og afgøre det. I skal være glade for, at det ikke er politikere, der afgør jeres sager. Vi skal lave noget ordentlig lovgivning. waxay tiri anaga waxaan sameynaa sharciyada guud baynu sameynaa matalan dadka ajnabiga ah tusaale ahaan haddii intaa joogaan waa in sharci abadiya la siiyaa laakiin detailska ku dhex jira sharciyada oo hadda adiga aad sheegaysid taa waxaa go-aankeed iska leh dad kale waayo qof walba ama kiis walba wuxuu leeyahay taariikh dheer buu leeyahay qofkani meequu wadankii meequu jooga meequu shaqe madami buu galay kiisaskaa marka xabadka ah ee mid walba taariikh leh anagu waxba kama sheegi karno laakiin sharciga guud waan ku sheegnay ka waran bay tiri marka haddii dadka hadda fadhiya oo qof walba sheekadiis intay dhegaystaan go-aan ka gaara ay ahaan lahayn dadka siyaasiyiinta oo markaa kiisaska noocaas oo kale ah ay gacanta u geli lahaayeen Pia Kjærsgaard iyo Lars Løkke oo kale gacanta u geli lahaayeen ka waran bay tiri yaan soo bartay oo ayagu ma ahaan lahayn go-aanka iga gaaraya oo dhahay ninka waxba lama helin ka wadamay oo taala normal macnaha Yahya Hamlawi. Det var jeg skulle bare supplere, da du har svaret på dem. Det er min emne med flytning og opholdstilladelse. Ja. Når man har boet i Danmark efter de 5 år, så man skulle have bestået i dansk 1, så man har været på arbejde og tjent sine egne penge i 3 år, og så man har været uden kontanthjælp i de der 3 år. Ja. Og det er det der svar til... Det er fuldstændig wuxuu yidhi sharciga Malina ayaan wax ku daray buu yidhi Hamlawi wuxuu yidhi sharciga intaa kaliya maaha wuxuu ku daray abadiid waxaa lagu qaataa qofka inuu Denmark joogo walaantana ma beed 5 år 5 sano kadib markuu qofka joogo waa inuu 3 sano ugu dambeeyo u shaqeeyo shaqo 3 sano laga rabaa 3 oo aabayda uu qodajado ceerna uu san qaadanin 3 sano ugu dambeysay sharci marka taana way ku jirtaa 3 sano soo shaqeysay ceerna aadan qaadanin 3 sano ugu dambeysay taas ku daray marka sharciyada Soomaaliya qofka soo kabo dad ka bixi karana Erik så svært det her lovgivning kan ikke ændre det her. Det er næsten umuligt. Når I får magten. Når I får magten, kan I ikke ændre det her. Mahmoud Aoud, Yahya, sorry, Yahya Kahn. For det første vil jeg sige tak til jer to for at møde op her. I havde faktisk nogle rigtig skarpe emner, som vi tager rigtig lang tid. Men det helt store spørgsmål, det er vi her i Danmark klar til at være et multikulturelt samfund? wuxuu yidhi Yahya waa ku mahadsantihiin meesha imaateen waxaa idin weydiinayaa Denmark annagu ma gaarnay heer ah inaynu noqono ama dawladdu ay ictiraafto bulsho kala duwan inaynu nahay oo aan Danish kaliya sida Ingiriiska oo kale Mareykanka oo kale waxaa la ictiraafay inay yihiin bulsho kala duwan laakiin Denmark wuxuu leeyahay annagu bulsho kala duwan ma nihin annagu Danish baan nahay saa daraadeed sharcigaasi ma ogolaateen inaad fulisaan inaad aqoonsateen inaan bulsho kala duwan nahay Da jeg læste statskundskab i Aarhus, så arbejdede jeg på Christiansborg som assistent for en politiker. Yildiz Akdogan hed hun. Hun er født i Tyrkiet, men valgt for Socialdemokraterne i Brønshøj-kredsen i København. Og der skrev jeg en tekst til hende, hvor jeg skrev, at vi var et multikulturelt samfund.
Og det gav hende nogle problemer dengang. Jeg tror ikke, hun ville have de problemer, hvis hun skrev det i dag. Og jeg tror ikke, vi får de problemer, når vi siger det i dag. Vi skal definere danskheden med udgangspunkt i grundloven. De værdier, som handler om, at vi står sammen omkring demokrati. Vi står sammen omkring ytringsfrihed. Vi står sammen omkring den personlige frihed. Det er de værdier, som vi skal være sammen om. Og det er de værdier, der skal udgøre danskhed. Og så er det ligegyldigt, om man tror på det ene eller det andet, om man har den ene eller den anden farve. Hvis vi står sammen omkring de værdier, så kan vi styre at være multikulturelle. Så kan vi styre, at vi har forskellige kulturer og forskellige måder at gøre det på. Så kan vi udvise respekt for hinanden, når vi står sammen om de værdier. Så ja, jeg tror, at Danmark er klar til at være et multikulturelt samfund. Inden så længe. Inden så længe. Må jeg sige noget? Ja, jeg skal lige oversætte det her. Det. su-aasha ayuu wuxuu ugu jawaabay gabar baan waa aan la shaqaynaya wiil oo turki ah oo markaa baarlamaanka denmark u sharaxneed markaa waxaan u ahay wiil xoghayn markaa dhiganaya kulliyadda siyaasadda gabadhiga marka aan waxaa la weydiiyey su-aalo ah inay ku doodo inay denmark ay noqoto sida su-aasha yaxya u weydiiyey bulsho kala duwan markaasa waxay u toliyeen bulsho kala duwan haddaan ku doodo laymaba dooranay bay tiri oo dadku hadda diyaar maaha xilligaa su-aashaas laakiin hadda denmark diyaar bay u tahay bu yidhi waxaan aaminsanaha bu yidhi marka hore waa inaan qeexnaa waa maxay deenishnimada deenishku waa maxay maxayna horta annaga wadaagnaa dadkeena kala duwan dimuqraatiyada xuquuqul insaanka waxa annaga aynu leenahay oo wanaagsan oo dhan markaynu ku midoon horta waxaan aaminsannahay kadib aynu qiranno inaynu dad deenisha aynu nahay baynu kadib ka hadli karnaa kala duwan oo deenisha aynu nahay markaasaan ka hadli karnaa waxaa ku daraysa wax kale mayaan Kultur er ikke kun noget vi har med os fra fortiden. Kultur er også noget vi skaber sammen. dhaqanku maaha wax annaga aan taariikh ahaan wadan oo keliya ee wax hataa waxaynu anagu abuurno. Og derfor så kan vi komme med kultur alle sammen. Vi har ingen af os, heller ikke selvom I er fra Somalia og jeg er født i Danmark og her i Kolding, så ingen af os kommer med den samme baggrund. Vi har haft forskellige forældre. Vi har haft flere eller færre søskende. Vi har kommer med alle mulige forskellige ting i vores rygsæk. inkastoo hadda meeshan aynu ku wada fadhino dad Soomaali ah iyo Danish ah haddana waynu kala dhaqan duwan leh waxaynu ka kala leeyahay taariikh dheer baynu leenahay familyo kala duwan familyo yar familyo waaweyn aad baynu kala duwannahay oo lama dhihi karo intayna isku dhaqan baanahay. Og jeg er kvinde og I er mænd. Men kan vi være sammen alligevel? Ja. Fordi gabar baanahay idinku rag baatiin haddana ma wada ma soo wada imaan karnaa waxaan qabsan karnaa ha. Jeg drømmer om et Danmark hvor vi kan være fælles og skabe en ny fælles kultur. Waxaan ku riyoonaa bay tiri aniga Denmark oo dadku ay wada jir yihiin dhaqan wada jir ay abuuraan wax walbana ay ka sameeyeen yihiin. Når min pige på 12 år hun spørger de leger ude i skolegården, så kommer der en og spørger, må jeg være med? Så siger jeg til hende, så skal du altid sige ja. Så siger hun, nogle gange bliver legen lidt bøvlet. Så siger jeg, det er der ikke noget at gøre ved. For nogle gange, så bliver legen også sjovere og større, og lige pludselig, så opdager du, at der er et nyt fællesskab. gabadheeda way toojirka bay markay ciyaarayso marka qaarkood waxay dhahdaa dad baa u yimaada midna ciyaari karaa mar walba waxaan dhahay bay tiri haddii lagu yimaado ma kula ciyaari karana lagu dhaha haa mar walba leh oo maxaan dhahay bay tiri dad baa ciyaarta naga hadlayna marka qaarkood waxaan bay tiri haa waa dhici kartaa laakiin ciyaartu way idin weynaanaysaa xiise kale yeelanaysaa markay dad kale yimaadaan oo ma aha kaliya gabadhaas wax kale noqonaysaa marka dambe faray isku bedelaysaa wax walba oo ku yimaado qof ku yimaado haa unde. Lad os stå sammen i det her danske fællesskab, og det fundament, som vi tror på, demokrati, menneskerettigheder, at vi er lige, uanset hvem og hvor vi kommer fra. Aynu wada istaagno oon ka sinaano kala duwanaanshaheena inaynu hal meel wada saarno meelshaan doon aan ka imaano oo aynu ku wada simanaano dimuqraatiyada iyo xuquuqul insaanka. horta horeeto waa ku mahadsantihiin mashaa Allah aan jeclaan lahaa labada dhinac inay fadhiyaan buluug iyo guduud. Ja, men heller haft både bloksidder her i aften. Så kunne vi høre begge kritikere. laakiin waan ognahay buluugga hadalladooda waa hadallo cadcad oo meel loo raacday
Vi kan se den blå bloks holdning om tingene, det er klart og tydeligt, og det kan man se, hvad det vil. waxaan warsan lahaa gabadha hadalkeeda waxaa ka soo baxay weysanayay annaga lacagta la qaato oo ah stadium lacagtaas haddii annaga aadna doorataan way joogaysaa haddii ayna dooran weysaanna way baxaysaa lacagtaas ma waxaan inu ku dooranaa annaga oo codkeena aan rabtay inaan ku heshiin keliya in lacag ceer ah aan qaadano oo shaqo la-aana nagu dhacdo aan shaqaysanayno oo dad aan noqono baasif ah oo intaas keliya mana dilaysiin mana sii baabiinaysiin idinka codkeena daxdiisiin. Det han siger, det er, du har jo sagt klart og tydeligt, hvis I vælger røde blok, så er der ikke nogen ændring. Det der starthjælp. Vi får, altså der er stadig kontanthjælp. Men det betyder så, altså, som jeg kan høre dig, siger han, at I vil have, at vi skal alle sammen have kontanthjælp. Der er ingen os, der får et arbejde. Vi bliver, hvor vi er. Så sådan. Ja. Altså, vi tænker på sådan en stor vision, vi skal arbejde, men I vil bare have, at vi skal have kontanthjælp. Sådan er et tydeligt klart spørgsmål. Vi vil allerhelst have, at I skal have et arbejde. Og det er jo det, jeg nævner med den... Uddannelse. Ja, og uddannelse. Først uddannelse, og så arbejde, eller omvendt. Det er derfor, vi har fremlagt den her kæmpe store integrationspakke, som vi ikke nåede, hvis der ikke var kommet valg. Hvis der først var kommet valg til september, så havde vi nået at få den gennem Folketinget. Hvis vi ikke kommer til at danne regering, så tror jeg ikke, at det bliver gennemført. Vi vil allerhelst have, at mennesker skal have arbejde, men hvis de ikke kan få et arbejde, så skal der være en ordentlig kontanthjælp. Så skal vi ikke have en fattigdomsydelse. Så får vi et samfund, der er præget af dem, der er på den lave ydelse, og os, der ikke er. Det vil vi ikke have. Det går vi ikke ind for. ujeedadana waxay tahay dadkoo dhan inay shaqo wada helaan sidaan horey ku sheegnay sharciga anaga aan baarlamaanka soo dhignay mooshinka aan keennay oo ahaa in anaga aan fulino doorasha lagu dhawaaqay annagu haddaynu xukunka xilno ujeedadeena ma aha inay dadku ceer qaataan laakiin ujeedadana waxa dadku inay wada shaqeeyaan waxna bartaan haddii laakiin qofka uu shaqo waayo ma yeelayno inuu qofka ay noqdo qof lacag qaata iyo qof aan lacag qaadanin qof wax yar qaata iyo qof wax badan qaadanin marka inaanu abuurno bulsho kala sarreysa ee hadafka aynu sameynayno lacagtan ceertan u diidayno istaadeen waa taa I forhold til kontanthjælp og visionen for, at vi skal have folk i arbejde, det handler jo ikke alene om socialpolitik. Det handler også om, at vi tror på, at man i højere grad bliver en del af et fællesskab, når man kommer på arbejdsmarkedet. Og der er vi tilbage igen til det her med det multikulturelle. Vi er tilbage igen til det her med kampen mod ekstremisme. Hvis vi får flere på arbejdsmarkedet, så skaber vi en bedre integration. Vi kommer til at kende hinanden, og vi får langt bedre værn mod ekstremisme. Fordi hvis man kender hinanden på tværs af religioner, så ved man, at hvis nogen siger, at alle muslimer er på en bestemt måde, så ved man godt, det er forkert. Hvis man kender en muslim, så ved man, det er forkert. Så det med at få flere ind på arbejdsmarkedet, det skaber et bedre liv for dem, der kommer på arbejdsmarkedet, men det skaber også en bedre integration, og dermed et bedre samfund, hvor vi står sammen på tværs af kultur og religion, om de værdier, som vi tror på. dadku inay shaqo helaan waxay keenaysaa dadku inay isbartaan shaqo badnida waxay abuuraysaa dadku inay isgartaan ayagoo kala diiman duwana ayagoo kala dhaqan duwana waxay abuuraysaa marka wixii wada jirka ahay dadka dhexeeyay in la wada ogaado haddii tusaale ahaan qof la sheego dadku waa dadka noocaas oo kale ah dadka diinta leh ma shaqaystayaal wax noocaas oo kale dad deen shabaab diidaya waayo dadkii waa la isbartay waa la isdhex galay dad badan baa shaqo helay laakiin dadka oon shaqeynin shaqada oo yaraato ceerta ay wadato waxay keenaysaa dadku inaysan isdhex galin oo markaa dadku aysan isgaranaynin su-aashii markaa waxay noqonaysaa yaxyaa usoo noqonayna oo ahayd multicultural samfur bulsho kala duwan inay noqono waxaynu ku abuurmaysaa dadku inay wada shaqeeyaan oo isdhex galaan marka ujeedadeeni waa taas wey waa mahad celinaa